اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. سهرت الليالي سمير النجوم أروم الوصال بخير الأنام. أروم الوصال بخير الأنام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فهل ترحموني أهيل الوفاء وهل تقبلوني فإني غلام. فهل ترحموني أهيل الوفاء وهل تقبلوني فإني غلام. وإني صغير على حبكم ولكن قلبي أسير الهيام. ولكن قلبي أسير الهيام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فمنوا بوصل علي سادتي وداووا قليبي ولو في المنام. فمنوا بوصل علي سادتي وداووا قليبي ولو في المنام. وصلي إلهي على المصطفى إمامي وقصدي وآل كرام. إمامي وقصدي وآل كرام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. سهرت الليالي سمير النجوم أروم الوصال بخير الأنام. أروم الوصال بخير الأنام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فهل ترحموني أهيل الوفاء وهل تقبلوني فإني غلام. فهل ترحموني أهيل الوفاء وهل تقبلوني فإني غلام. وإني صغير على حبكم ولكن قلبي أسير الهيام. ولكن قلبي أسير الهيام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. سهرت الليالي سمير النجوم أروم الوصال بخير الأنام. أروم الوصال بخير الأنام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فهل ترحموني أهيل الوفاء وهل تقبلوني فإني
وصلي على المصطفى نبينا محمد. waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe Horyaal iskuul magaceedu waxa la yiraahdaa iskuul aadan Cabdullaahi waxay radaan warbixin yar oo kooban ka siiyo dugsigan wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood qayb ah dugsiga hoose oo subaxii dhigata iyo qayb dugsiga dhexe oo galabtii dhigata iyo qayb waxbarashada caafimaadka isagoo qayb gaar ah oo dugsiga tababarka caafimaadka Horyaal marka tirada ardayda ku dar waxaa dugsiga dhiganaysa ilaa arday 460 arday ah marka labada saddex qaybood dugsiga isku daro waxaa dhigataa ilaa 460 arday qaybta caafimaadka waa laba qayb u kala saarnay gabdho iyo wiilal 45 wiil iyo 45 gabdhood ayaan ka dhignay mid walba fasalkiisa gaarka aan tusina duruustiisa aan u diyaarnay insha Allah waxbarasho caafimaad oo hal sana aan rajaynayno inay wax badan soo gelin doonto deegaanka iyo bulshadaba haddaan wax yar ka hadlo meelaha dugsigan wax ka hela iyo taageeradiisa iyo bayaad jira dugsigan wuxuu ku xiran yahay boqolkiiba boqol oo meelaha wax ka soo galaan waalidka ilmaha dhalay ayaa saacida waxaana saacida waalidka ilmaha dhalay kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad celinayna sabahan u guuleysanayna waxa iskale bulshada aan xil ku hayno ayaa guulaha loo soo horiyay amaantayda iskale waxa inaan guuleysano sababay ilaahay fadligiisa waalidka iyo bulshadayada iyo deegaanka ayaa inaan ku guuleysano barnaamijkaas aan ku horumarino waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan kor u sii baxno aan noqono iskuulada mandaqada ama deegaanka ugu sareeya xagga haddaan ka hadalno dhaqaaleynta iyo musaacada dadka aan deegaanka ama waalidka ama ilmaha u fidino dugsiga dhigta dugsiga caafimaadka oo kale isaga gebi ahaantii sidiisaba waxaan ku dhignaa tabarucaad lacag la'aan baan ku dhignaa wax dhaqaala iyo ardada caafimaadka dhigata aanu ka qaadno ma jirto ardada dugsiga kala dhigatana ilaa waxaan dugsiga lacag la'aan ku dhigta arday qiyaasta marka aan qiyaasna 100 ka yareen kuwaas oo dad danyara iyo dad awooma iyo dad maxaan ku radaa fiigi waay iyo dad maxaan ku radaa biyo ka soo xirooday iyo dad noocaas isku jiro dad danyar ah inaanu maxaan ku radaa arday waxbarasho loogu yimidna aanu ku celino dhaqaale awgeed marna wax naga suurtageli kara maaha waxaa dugsiga mamnuuc ka ah arday waxbarasho loogu yimid oo inuu waxbarto rabo waalidkiis wato inaanu sabab dhaqaale dib ugu celino waxbarashadaas uga haro iskuulkayga waxay ka tahay mustaxiil bay ka tahay qof kasta oo dhaqaalihii wax ku baran lahaa waaya waxaan ku boornahay miis in waxbarashada ka soo arday waxbarasho ku mid noqdo si mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa uu soo bulshadiisa iyo naftiisa wax u taray waalidkiisa marka waxaan ka codsanaynaa dadka waxbarashada jecel oo Soomaaliyeed meel kasta joogeen inay ka qayb qaataan si u taageeri lahaayeen horumarka waxbarashada ee dugsiga Horyaal kaas oo dadkiisa bulshadiisa wuxuu ka sugayaa taageero iskuul deyn male waxyaalo qalab xafiis male dayac badan baa ka jira intaas oo dhan waxa uu hadana ugu dhabar adeegnayo waxa markasta waxaan awoodi karno waxbarashada xaggeeda naga kala usaamin marka waxaan soo gabagabeynayaa dugsigan eedno uma maqna eedno uma qodno marka waxaan leenahay hala saacido intaa waxaan ka tegey meelaha waxbarasho aan ka hadlo xoogaa musaacadooyinka wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka Puntland iyadoo dowladda awoodeeda dhaqaalaha iska xadidan tahay dowladda wixii kasta oo magaalada taageerada dowladda awood u leedahay in dugsiyada aan la midnahay taasna waxa weeye awood darada dhaqaalaha ka jirtana waa mid caam waxa weeye dadka iyo capacity dowladda qof kasta waa iska dareemi karaa marka dowladda naftigeeda waxaan ku rajaynaynaa inay kor u qaadi doonto waxqabadkeeda ku aadan guud ahaan waxbarashada gaar ahaan dugsiga hoose ee Horyaal وصلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ruqayya Diiriye Xasan waxaan u shaqeeyaa MCH ka xarfo waxaan waa umuliso midwife baan ahay MCH ka xarfo waxaa la dhisay 2003 hay'adda dhistayna 2003 baa la dhisay gacantana waxa ku haysta bisha cas
oo dhaqaalaheeda iyo wax walba gacanta ku haysa oo naga kaalisa waxaan wuxuu u adeegaa MCH-ka degmada Xarfo oo dhan ilaa tuulooyinkooda oo dhan maxay tahay waxaanu caawinaa hooyada uurka leh waxaanu caawinaa ilmaha 5 sano ka yar waxaanu caawinaa hooyada dhalaysa waxaanu caawinaa adeegyada kale oo bulshada oo dhan caafimaadka guud oo dhan cudurrada guud oo dhan baan qaabilaa talaalka baan siinaa maxay tahay كنتي وأدينا عافمات كجود وحي أنا وحكي قبل كرنا واجد بنا قال كعيا أيام وجود بنا أتضاعت من كيلومتر نوشرته شقة إذا هالباس أنا كجود أنا وحي أنا قبل كرنا هو يلا كما كتبت حرف ومكحرين هذا ما فاهمين وكحرين آد بين أوحرين وأنا آد بين وأدينا MCH كحرف marka dhibaatooyinkii horay asaga ka hor intaan la dhisin ka jiray maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa caafimaad la'aan umulis la'aan dhakhtar la'aan baa kamid ahaa haddana laftirkeeda dhibaatadii badankeeda waa la xaliyay laakiin mid waxaa jirta aan xalin karin oo dhakhtar naga sareeyo u baahan taasna waxaan u gudbinaa gaalkacyo inkastoo bulshada ay ku tahay qof aan dhaqaale haysan oo gudbin baa tahay marka la tahay dib ku tahay haddana way واسكو تحلوشيا إن أخترت وجدبان وحي سميان اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام جميل بسم الله الرحمن الرحيم وين سلام يا دمان dhammaantiin bahda saxaafadda iyo dhammaan Somali Channel iyo deegaanka dadka u dhashay reer Xarfo iyo reer Puntland iyo dhammaan daawadayaashaba salaan kadib waxaan rabaa inaan warbixin ka bixiyo degmada Xarfo degmada Xarfo way wanaagsan tahay hadda alxamdulillah buu fiican tahay marxalad badan bay soo marday laakiin aad iyo aad bay wanaagsan tahay Xarfo waxa soo marday xilliyo kala duwan hadda xilligii ugu wanaagsanaa ay maraysaa sida abaaraha kale hadda alxamdulillah roobkii waxa noo curtay dayrta khayr badan ilaahay waa ka rajeynaynaa bahayir way jiraan laakiin insha Allah inaan ka baxaan rajeynaynaa hadii Alla idmo degmadu maamulkeedu waa shaqeynayaa si dhameystiran buu shaqeynayaa wuxuuna isku dayaa inuu baahiyaha degmada intuu kala tabartiisa u daboolo wixii uu awood u waayana wuxuu rajeynayaa inay ka caawiyaan sida maamulka ka sareeya iyo cidda u dhalatay deegaanka cid kastoo ay qusayso deegaanka degmada Xarfo baan ka rajeynayaa inay naga caawiyaan wixii aan qaban weyno maamulku degmadu wuxuu u taagan yahay bulshada inuu u shaqeeyo bulshada degmada Xarfo waa dad diyaar u ah inay la shaqeeyaan una shaqeeyaan danahooda maamulkana la shaqeeyaan annaguna diyaar waxaan u nahay inaan maamulka u shaqeyno dadka shacabka ee deegaanka wax qabad bay diyaar u yihiin dadku annaguna wax qabad baanu diyaar u nahay dhammaan waxaan qaadaynaa ololihii nadaafadda iyo wax qabadkii degmada insha Allah waana ka mideysanahay maamul ahaan iyo shacab ahaan iyo deegaan ahaan waa ka mideysanahay kadibna insha Allah waxyaabo badan oo aan tabaynaa jira waxa aan tabaynana dadka aan ku tabayna waxa kamid ah sida jaaliyada dibadda oo kale iyo dadka deegaanka u dhashay Xarfo oo banaanka jira wax badan baanu ka tabaynaa waxaanuna ka rajeynaynaa inay ka soo qayb qaataan horumarinta degmada iyo arrimaha bulshada adeega bulshada wax badan baa degmada ka dhiman wax badan baanu ku soo kordhinay wax badan baan diyaar u nahay inaanu ka qabanno hadii Alla idmo waxaan rabnaa inay naga qayb qaataan arrimaha bulshada oo naga dhiman hadda wax hadda meeshan ku soo koobi karma wax badan baa jira wax badan waa qabanay haadana wadgaliya wax baan ka qabanay gurihii xafiisyadii iyo maamulada deegaanka wax badan baanu ka qabanay nidaamkii nadaafadda wax badan baanu ka qabanay wax badan waa noo harsan yihiin waxbarashada wax badan baanu ka qabanay wax badan waa noo harsan yihiin sida secondary schoolkii oo aan dhulkii habaynay
waa naga dhiman yahay dee uma leelihiin tabar aan hadda aanu ku dhammaystirno isbitaalka guud ee degmadu ma leh MCH bay ku shaqeeyaan waa baahi ay degmadu qabto aysan tabarna u hayn maamulku ballanqaadii way jiraan laakiin waxaan hadda gacantan ku haynaa ma jiraan ganacsiga degmadu wuu korayaa wax badan buuna ka bedelay degmada deegaan badan bay hoos yimaada waxaa ku xiran tuulooyin badan oo ganacsi sida ganacsiga yaryar iyo ganacsiga kale ay la leedahay sida shirkadaha kale waa ku soo bateen waad aragteen shirkadaha waad soo madheen shirkadaha waa soo degeen ganacsatadii waaweynaa hadda waxa weeye waa ay soo degeen ganacsatada yaryar way jiraan oo iyaguna hawshooda dadaal badan bay wadaan waxaa kaloo jira deegaan badan oo hoos yimaada degmada Xarfo oo iyaguna ku xiran marka wax badan baa iska bedelay intii maamulka degmada uu shaqeynayay degmadu waxay ku xiran yihiin dad waxa weeye xoolo dhaqato ah marka waxa ugu badan oo la oran karaa xoolaha dhaqda bay u badan tahay caafimaadka alxamdulilah hadda wax balaaha oo hadda lala qayliyo aan halkaas problem baa ka jiraa alxamdulilah ma jiraan MCH baa ka furan wixii intaa ka saa'ido oo MCH ku qaban waayeen waxaan u gudbinaa isbitaalka gobolka baan u gudbinaa qiyaas ka bixin karaa ilaa adigu mar aan turkoob sameynay ilaa 4,000 oo xaafadood baan diiwaan galinay laakiin waxaa kaloo jira deegaanku markaad jiilaal dhaco sida jiilaalka adkaaya la soo maray oo kale waxaa jira in dadku soo guuraan waxay degmada hoos yimaada 40 tuulo hoos yimaada degmada Xarfo 40ka tuulo markii dhinac ama ay abaare ka dhacdaa ama ay abaare badan jiraan waxay ku soo guuraan degmada waxa laga yaabaa halkii qoys oo guri deganaa in 2 qoys 3 qoys ay ku dul yimaadaan mararka qaarkood hawlahaas badan baa jira marka deegaanku si dadku u badan yahay iyo macaa isma leh guryaha hadda ka dhisan magaalada aad iyo aad waxyaabaha ay reer Xarfo caanka ku yihiin bay ka mid tahay waa iskaalmeeyaan way isu gurmadaan waxay sameeyaan caawin tiro badan hadda sida jiilaalka la soo dhaafay oo kale maamulku qayb leeyahay uu ka qaataa kan Puntland iyo kan degmada Xarfaba dhammaan wasaaradaha way isaga tagnaa waxaanu sameynaa biyo dhaamin baan sameynay inta anagu wadno waxa ka badnayd gurmadka dadku isagu soo fidinayo baa ka badan kan anagu hadda dawlad ahaan aan dadku caawinay markay dadku waxay u dhisan yihiinba dad is caawiya iska warqaba iskaalmeeya ترد السلام جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام سهرت الليالي سمير النجوم أروم الوصال بخير الأنام أروم الوصال بخير الأنام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام ما شاء الله أنا واحد من هاي دقيقة حرفك إن عصته وحلي لا علي صفر سنة مركز كلام عن هاي أبو شغل سنة كان هي سنة كان بفي عن هاي وقيمها سكرت وكلام مركز روحه جاري كنت مضار هذا أنا إلى فرتني الشن إن ناس مصوف عنا يا مركز ما شاء الله ناس قاعد أدب في عيه بس كنت سكر لو ما أنت صدق بقى صور عيه بريسك أبو مربو إلى فرتني الشن جاري هذا أبو إلى صدني وشن يملها سمر يعون بقرعي عنها يسليد وكله لما واحد نادي في عين صدر ويكفي عين ما شاء الله في عين كاسيقو ده بوساسو إلى قال خعي ما كحرنا ما شاء الله قناص من وفيعين تكرم مية هذا أدب وفيعين مرة كانوا يحل الدوق وشغال دمان أدب وفيعنت وهذا أدب وفيعنت ودك ولا دقين هي هذا روب بشرة ما شاء الله هذا دقان كي قناص كي هذا وحاس بقرا حولها أيوة كلا قتان عانها قتان حولها كلا قتان وحيلا بدنا بيلي مادان وحاسي قتان بعد قيد مركز نادو راشين كي وحولها كلا قتان قناص مركز وكفيعين عقدنا هذا ما شاء الله حلقة كذا كاكل حبيس كسي قاتان حلقة دوقة يقول بيضوا حقتان وهذا يقول مركز هاي حوله نقع دقان بحوله هذا قتان مركز وكله مركز بحوله قتان أنا قلنا حلقة كذا كاكل قاتان وما شاء الله حلقة رواد كاكل ويروب بعدي وحوله بالقدنية حولها لطيف هذا غالي ونفكي لا لحن $1 بسي مريا نفك حولها مركز دي سيدا سو كلام مركز حلقة دوقة جناع سقوف في هذا مركز ما في هذا كاي ماذا حولها لقتان جناع سقوف مركز أدبو في هذا وحنا قد ما وحيالي دبدها يا جناع سدي وين هذا وحاجة أصلا حاجة حكسي لوينه waxaan xulatina dadku waa isbadalina gacan qabtaan labada xiriiro bulsho la wada noqdo ترد
magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon cabdixaliin macalin cali waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada xarf runtii waana salaamayaa Somali General idaacadda sharafta waana salaamayaa waana soo dhaweynaynaa waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan kaga warramo degmada xagga ganacsiga ama horumarkeeda ama dib u dhaceeda Sembri hadda ganacsigu waa fiican yahay aad buu fiican yahay xoogaa degmadu Sembri waxay ku xiran tahay xoolaha iyo reer miyiga bay ku xiran tahay bombaleheedun u badan yahay sida marka hadda runtii waxa weeye hadda roob baanu helay xoolihii way soo dhawaadeen si fiican baa ma garanaysaa hadda ganacsiga iyo shacabku u fiican yahay populationku magaalada u fiican yahay laakiin Sembri waxaan ugu yimaadaa waqtiga hadda abaartii hore aan soo marnay hadda sanadkan sanadka horeeyay oo guga ahaa maanan helin degmada areadeedan oo dhan roob kama diinin waxa ugu sokeeyay roobka beer dhagax tuur godob yar iyo hawdka ka sareeyay xoolo way naga hayaameen way naga guureen haddii ay guureen waxa weeye xoolihii miyiga dadkii waan shacabkii waa naga tagay xataa magaalada dadkii deganaa way guureen oo roobkii iyo xoolihii bay raaceen oo de magaalada mar haddii Sembri abaar ay soo madhay oo roobkii la sugayay uusan ka diinin xataa dadka degan oo caruuruhu waxa weeye waxa ku dhasha xanuunaba ku yimaada marka saxada iyo miyiga iyo caanaha xooluhu baa dadku ku nool yahay meeshii aadaan baana loo aadaya si weyn baa marka ganacsigu hoos noogu dhacay oo aad baa ganacsigii suuqu noogu xumaaday laakiin hadda si fiican baanu rajo u qabnaa oo rajadaas oo ay tahay nolosha iyo raxmaadka ilaahay uu keenay weeye aad baan ganacsigu hadda u fiican yahay laakiin Sembri waxa yimaada waqtiga abaaraha aad baa ganacsigu noogu hoos dhacaa xilliyada canshuuruhu ay nala ku siyaadiyo oo waxa weeye cashuur kororka uu yimaado oo dhibuhu ay bataan oo isbaarooyinka iyo canshuuraha ay kordhaan waxa weeye aad baa xagga ganacsigu ay wax uga weynaa deeshkishkii qiimihii laga soo bixiyo asagoo qaali ahaa waxa weeye canshuur badan soo fuushay isagoo gaariga xataa shidaalka intiqaalay kiradii uu dalaco laban laabo waxa weeye waxaanu ku helaa ma jiraan waayo waxa weeye dadku waa iska danyar waa iska reer miyi waa dadku waxa weeye waa dhibaataysan yahay wax laga helayaa ma jiraan aad baa marka ganacsigu uu dib noogu keenaa oo wixii aan ka heli lahayn ay nooga yaraadaan sida oo kale marka ma garanaysaa marka canshuuraha waa saas marka kale oo hadda waxa weeye xilliga ma garanaysaa abaartuna waa saas xilliga canshuur kororka waa saas xirbararka marmar doolarka uu kacaa marka doolarku ku cos xirbararku yimaado waxa weeye iyaduna sidaas oo kala qiimaha ganacsigu hoos ugu dhaca waxyaalaha marka dhibtan ugu keena haddana soo maray xilliga abaaruhu ay joogaan oo waxa abaarta waxa weeye dadku waa iska danyar qof deyn qaata qof wixii aad haysato kugu qabsado asiisid waxa weeye waxaad ka helaysaa ma jiraan hadda abaarta dhaweydana soo maray waxa weeye raashin iyo waxa inta laga tagay baanu booyada dhaamis iyo biyo dhaamsee biyo loo helaa aanu galay waxaan haynana saas ku tagay marka xagga xilliga abaartu ay jido abaartu saas kale u timaado xooluhuna ay guuraan ganacsigu hoos u dhacaa taa marka waa wax dabiici oo ilaahay bay xaqiisa ku xiran tahay xilliga abaaraha waxaanu tarnaa ilaahba horta wax tari karo oo bini'aadamku wuxuu tari karaa wuu iska yarayahay laakiin xilliga abaartu ay jidho waxaanu tarnaa laba waxyaalo xilliga raashinka ummaddu ay waadaan raashin ku yaraado waxaanu hayno baanu wixii aan siin karnana aanu siinaa wixii aanu deymin karnana aanu deyminaa Sembri laakiin waxa ugu weyn oo aanu bixinaa deyntay ku badan tahay oo waxaan miraanaa waa la iskaga qoraa haddii xooluhu soo noqdaan oo ilaahay wax ka reebo markaas baanu deyntii ka helnaa qofkii de bini'aadan oo ma garanaysaa inuu xaq baxaraba taa kuleen waan samaynaa raashinka waxbaanu ka bixinaa qootayn baan samaynaa waxbaan isku geynaa xagga biyahana waanu ka taageernaa waxa weeye halkaan hadda 350 booyadood baanu ku qaybinaa xarfo hadda jilaalkii dhawaarta wadana soo madhay ganacsato ahaan oo aanu qayb ka qaadan qayb udugu maamulka iyo waxaan ku sheegay ganacsatada boosaasi gaalkacyo udugu soo bixiyay waxaan anaga ku darnay hay'ado laftigooda biyo badan bixiyay oo waxa weeye laftigooda sidoo kale biyo u keenay booyad badan aanu bixin way jidhay laakiin anagu waxa weeye isku dar baanu sameeynaa wixii aanu ku taakulayn karnaa reer miyigana waanu ku taakulaynaa xag biyo ha noqoto xag raashin ha noqoto hadda dadka yagii iyo hantida yadii iyo dadkii waxa weeye waxoo dhan waa community
waa dad wada dhashado baahidoodii iyo xoolihii dhumayay intaba wayna dhimayaan waayo xooluhu hadday dhammaadaan waxaanu hayna anagu hayn mayno meesha waa ka tegaynaa waxaanu ku joognaa hantida waxa weeye lagu dhaqan yahay waa miyiga iyo xoolaha weeye waxaa lagu horumarin karaa iskaashi la sameeyo ganacsatada waaweyn oo ay ka samaysato maalgashi magaalada ay degmada ka samaysato hadda waxaa ka maqan magaalada maalgashigii ganacsatada waaweyn ama xag dibadeed ha jireen ama gobollada waaweyn ha joogeen maalgashigii ay gashan lahaayeen degmada baa qaybtoodii baa maqan annagu haddii aanu nahay community-ga degmada wixii aanu qaban karnay waanu qabanaa semberi inaan wax kordhinana waanu jecelahay ganacsi ahaan magaaladu biyangelin male laakiin maskaxdayada way ku jidhaa wax badanoo inaan qaban aanu jecel lahayna way ka mid tahay laakiin tabartayada iyo biyagelinta waxaan u heli karno isma ilahan laakiin inaanu ka qayb qaadano haddii aanu helo community maal gashanaya magaalada inaanu ka qayb qaadano annaguna qaybtayada qaadano diyaar baan u nahay bay u baahan tahay mana lahan magaalada waxay leedahay isbitaal yar oo MJS ganacsata ahaan waxaanu jecel lahay inaanu wax ka qayb qaadano oo wax ka bixino hadda ka hor waxaanu soo marnay stationkii baanu ka qayb qaadanoo dhisnay degmada guriga degmada hadda qabyaado socdo aanu qayb ka qaadanay wadooyin la falay oo xataa buundooyin aanu saarnay inta baabuurti mari weyday oo biyogooyin buundooyin loo mari waayay baanu buundooyin xasaasarnay waxa kamid ah beer dhagax tuur iyo xarfo wadada isku xidha waanu buundo saarnay jidkeeda aanu furan 30 kilomitir cagaf gelinay taas qayb weyn baanu ka qaadanay community-ga xarfo iyo beer baanu u badnaa wixii uu ka qayb qaatay wixii kale oo yimaado aanu baahidayadu tahayna inaanaan hakrana ka qayb qaadanaanu jecel waxaanu jecelahay marka community-ga kale oo ganacsatadu dibadda iyo kuwa gobolada inay ka qayb qaataan Puntland oo ay maal gashadaan magaalada annaguna aanu ka qayb qaadano insha Allah hadii rabbiin سهرت الليالي